470 arday oo wax ka barta kulliyadda caafimaadka Goday ayaa u fadhiistay imtixaanka xaqiijinta tayada xirfadlayaasha COC-ga. Imtixaankan oo noqonaya markii ugu horeysay ee laga qaado nidaamka online-ka ee aaladda casriga halka awal ay ku qaadan jireen nidaamkii hore ee caadiga ah. Ayaa ardaydan oo heerkii saddexaad ayaa mas'uuliyiinta kulliyadda caafimaadka Goday iyo mas'uuliyiin ka socotay wakaaladda xaqiijinta tayada xirfadlayaasha ee deegaanka ay ardaydan si guud wacyigelin iyo faham buuxa ay ka siiyeen habka ay u marayaan imtixaanka. Waxaana si wada jir ah uga hadlay maarayaha kulliyadda caafimaadka Goday mudane Axmed Maxamed Caagane iyo Khadar Cali Maxamed oo ka socday wakaaladda xaqiijinta tayada xirfadlayaasha deegaanka in ardada la siiyo orientation ku saabsan nidaamkii ay u qaadan lahaayeen imtixaamka maadaama macnaha barigii hore ardadu ay ku qaadan jirtay imtixaamka qalin iyo waraaq ay ku qaadan jirtay oo hoolkan laga qaadi jiray arintii waxba iska bedelay oo waxay noqotay in ay ardadu ku qaataan imtixaamku inuu noqdo digital assessment ama computer uu noqdo sidaa darteed ardadana hadda ka hor mayna ku qaadanin nidaamkaas marka taa darteed baa maartay ardada maartay halkan loogu soo shiriyay oo maartay loo siinaya orientation ardadan hadda level 4 ka level 3 goodi waxay ku qaadatay digital assessment bay ku qaadatay ama computer bay ku qaadatay marka wada socotaan muddo dheer baa maartay hal sana waa aware baatiin oo maartay information ka wada hayseen annaguna waan ku baraarujinay inaad maartay waxa weeyaan computer-ka aad barataan oo maartay aad arinta ku dhaqaaqdaan macnaha waana filayaa in arday badan ay maartay xagga computer-ka barigii hore sida ay ka ahaayeen ardada barigii hore markii imtixaamka aan COC-ga lagu qaadi jirin computer-ka wax computer isku taxalluujin jiray iyo wax arinta macnaha ku dhaqaaqi jiray ma jirin laakiin inta arintan dhacday waxa weey arday badan baa ku dhaqaaqday maartay inay IT-ga ay bartaan oo maartay waxa weey hadda wax u bilaaban yahay oo maartay wax badan u bilaaban yahay marka waxa kaliya marka waxaan filayaa inay arday badan maartay sida maartay computer-ka loo furo sida maartay waxa weeyaan wax badan oo maartay bilow ah oo computer-ka aan ku cusbaan sidii bariga hore ay ahayn yaan qabaa inay yihiin marka hadda imtixaamkana waa waxa soo barateeno ma garanaysaa level 3 ga soo barateen cashiradii manhajkii curriculum-kii umbo maartay laga soo diyaariyay marka waxaad baranayseen weeyaan marka wax cusub oo maartay waxa weeyaan hadda leedin keenayo oo ma garanaysaa wax meel kale laga keenay ma jiro manhajkii aad ku tababaranayseen macnaha casharada ku soo qaadanayseen umba maartay laga soo diyaariyay waxa kaliya ku cusub waxa weeyaan computer-kan waa inii sheegnay in maartay computer lagu qaadi doono inina hadda waxaad chance ku haysataan oo kaga duwantiin waxa hadda la idinka qaadaya waxa weeyaan wixii hal sana macnaha aad soo baranayseen macnaha waxa weeyaan waa wax kooban weeyaan laakiin level 4 ka kala markii loo waa kala duwan tahay macnaha level 3 gi iyo level 4 ki baa la idinka yaa la qaadaya laakiin hadda maadaama hal level yahay hal level de ardayga maartay xariifka macnaha waxa weeyaan ama isxilqaan kale way fuudahay inuu maartay mawjuladii uu soo xafido oo maartay uu qaato way fuudahay marka maadaama ay saa tahay waxa weeyaan in ardadu ay maartay si deganaansho leh oo kalsooni leh oo ma garanaysaa ay buuq lahayn qaylo lahayn ay ayar la qabsadaan waxaan hadda idin sheegaynaa waxa weeye nidaamka qiimaynta loo galayo nidaamkan computer-ka la sameeyay iyo sida uu yahay sida la soo sheegay qiimaynta hadda waxa loo bedelay nidaam computerized ah ama digital assessment wax la yiraahdo ardayga maanta dad qiimaynta uu garan waayo ma aha sanad busugi ma ah qabrdaar buu gali karaa duu arday arko jiji buu gali karaa godow meesha doo gali karaa dhimar qiimaynta laakiin ardayda waxay u arkaan haddii maanta uu ardaygu maanta uu yar garan waayo wuxuu hoos u dhaco inuu imtixaan daba galayna ama waqti ban ku qaanayso ama nidaam ceeb fashil ah iyo arka ruux ma qorta nidaamka in la iska saaro waan bogaadinaynaa nidaam kale computer-ka ardaydu ay ka qabto phobia waxa la yiraahdo ka cabsi ka qabto kii hore kan ka cadaalaysan sida soo sheegay sababta barigii hore waxa dhici jirtay inuu yiraahdo ardaygu macallin baa igu khalday macallin baan islaynay qof shaqaalaan maxay isku xanaaqnay maxay baa jira waan baasay kasba la yiri laakiin haddaad ee tiraahdo oo ee ku sax tahay ee ku saxoon haddaad bi tahay bi sax ku tahay bi ku saxoon sida aan ognahay qiimayntan COC-gu digital-ka hadda waxa markii labaad laga qaaday kulliyaddan Goday Health Science College way meelo kale deegaan ka soo qaadnay ama qabdaraata ama jigjigaata ama dhagax buur ama kulliyada kale deegaanka laakiin Goday markii labaad marka insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inay arday badan noo baas doonto insha Allah ugu dambeynta laabooyinka leh ayaa qayb ka ah dadaalada xukuumaddu ay ku doonayso in la soo saaro arday tayeysan si taasi loo helana xoogga la saaray xaqiijinta tayada ardayda kala duwan ee barta xirfadaha kala duwan taasoo hirgelinteeda ku hawlan yihiin xafiisyada iyo qaybaha ay khusayso. Maxamed Cumar Calaabe, telefishinka caalamiga SR TV, kulliyadda caafimaadka ee magaalada Goday.